بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وفضي كمida walaalayaal fadhiyada aynu uga hadlaynay axkaamta ramadaanka iyo akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo wanaagga qofka laga rabo inuu kaga faa'iidaysto waqtigaasi fadhigan waxaan ku tilmaami doonaa walaalayaal salaada loo yaqaano salaatu taraawiix oo macruufka ah waxyaalaha la jiidayo walaalayaal bisha ramadaan dhexdeeda waxaa ka mida salaata loo yaqaano salaatu taraawiix waana sunno aad u adag oo u fiican oo sunno sarraysa ah taraawiixna waa lagu magacaabay iyadoo laga soo qaatay dadku markay tukadaan 4 ragcadood ee hore ay nasanayaan xoogaa intaysa ragcadaha kale u gudbin xoogaa fadhigaa la hakanayo idan xoogaa bay halkaa ku raaxaysanayaan ku nasanayaan taraawiix sidaasaa lagu magacaabay leanna salaada ragcadaha hore ay dheerayn jireen inta kale markaysa gelin bay xoogaa nasan jireen jamaaca in lagu tukado weliba masaajid dhexe lagu tukaana fadli badan nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuu tujiyey asxaabtiisa masaajidkiisii gudihiisa ayuuna ku tujiyey habeenna kooban habeenkii dambana waa u gooyey nebi maxamed oo uu ka dibdhacay asagoo ka cabsanaya in lagu waajib yeelo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu naxariisanayay bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen oo ay kutubtooda saxiixa ku qoreen ayagoo can caaisha ka warinay radiallahu tacaala canha rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam inuu tukaday masaajidkiisa dhexdiisa habeenada ka mid ah salaaddiisiina waxaa kula soo xirtay dad ka mida asxaabtiisii oo khayrka aan looga dheerayn jirin oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayan jiray habeenkii ku xigayna sidii oo kale ayaa dhacday weliba dadkii wayba soo bateen oo habeenkii hore ayay isu sheegeen habeenkii saddexaad habeenkii afraad sidii baa dhacday habeenkii shanaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam umuu soo bixin waagu markuu baryey oo salaaddii subax tujiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ku yidhi nebigeena calayhi salaatu wasalaam dadkaasi waan arkay waxa aad samayseen hase ahaatee iima diidin inaa idiin soo baxo xalay ilaa waxaan ka cabsaday in laydinku waajib yeelo salaaddaas oo salaad jamaaco ah ayay noqoto dadkiibaa soo batay waxyigiina waa socdaayo xagga ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyigaa ka imaanaya oo axkaamtii la jiraynayo waxaa laga cabsada marka ama nebigu ka cabsada calayhi salaatu wasalaam in waxyigaa ilaahay uu ku soo daro in salaadda la waajib yeelaba taraawiixda marka salaadihii waajibkaa 5 ahaa ay siyaado ku noqoto ee jamaacada lagu tukan jiray isagoo nebi maxamed sidaa ka cabsanaya ayuu habeenkaa dambe dib uga dhacayso tukan calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigeena markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisaa samaysay gadaashiisa ummadduna sidaas ayay ku aqbashay rasuulkeenna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leylah qofka istaaga oo salaad u istaaga imaamkana la tukada jamaacadana la tukada ilaa laga baxayo salaadda la dhammaynayo qofkaa waxaa loo qorayaa habeenkao dhan inuu salaatuleyl u taagnaa xadiis saxiixa marka waa sunno haabita ah oo sugan qofka muslimkaana ooma habboona inuu ka tago waa salaatu taraawiixe ragcadaheeda culummadu way isku maandhaafeen laakiin athar saxiixa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugani ma jirto oo ragcadaha tilmaamaysa oo xadidaysa marka arrinku waasicnimuu ku sugan yahay culummada qaar baaba yidhiba 41 ragco weeye salaatu taraawiix oo waa culummadii reer madiina qowlkoodii weeye waana sida uu doortay isxaaq qaarna waxay dhaheen waa 20 tirmidina aqwaasha wuxuu ku sheegay fii sunanihi kuwa 20ka yidhi waxaa lagu darayaa 1 ragco oo witra 20 ragcadood waana jumhuurulfuqahaa ama jumhuurulculamaa siday qabaan weeye taraawiixdu inay tahay 20 ragcadood a'immadaasna waxaa ka mid ah imaamu shaafici thawri ibnu mubaarak in ay qabaan salaatu taraawiix inay tahay 20 ragcadood laakiin 11kan aan naqaano ee hadda aynu tukanno meesha ay ku dhisan tahay waxaa weeye salaatuleylkii nebi maxamed uu tukan jiray oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo ramadaan hayrkiisba wuxuu tukan jiray salaatuleylkiis waxay ahayd 11 ragcadood halkaasaa lagu dhisay laakiin salaatu taraawiix markii la yimaado arrinkooda waa waasic ama 11 tuko ama 20 tuko ama 40 tuko xad iyo meel xiraysa ma jirto walidaalika shaykh alislaam yidhi caleyh raxmatullah qofka yidhaahda salaatuleyl ama taraawiixda ragcado xadidan iska leh waa qof khada ku dhacay oo khalad ku dhacay marka qofku inuu 20 ragcadood tukado wuu samayn karaa sida mashhuurka ka ah imaamu axmed madhabkii iyo shaafici 6 iyo 30 ragcadoodna wuu tukan karaa ragcadaha taraawiixda uu ka dhigi karaa qofku sida imaamu maalik madhabkiisa uu yahay 11 ragcadoodna wuu tukan karaa ama 13 ragcadoodna waa tukan karaa dhammaan waa wanaagsan yihiin oo wax fiican marka ragcadaha in la gaabiyo ama la dheereeyo salaada taraawiix waxay ku xiran tahay
istaagga dheerarkiisa iyo gaabnida la gaabinayo. maxaa yeelay cumar markuu dadka salaaddaa ku kulmiyey oo jamaacada uu abuuray imaamna ooga dhigay ubay 20 ragcadood ayuu tukaday. saxaabadan waxaa ka mid ah kuwa intaa kariyay iyo kuwa ka badiyeyba. marka arrinkeeda waasicnima ku sugan oo qofku hadba intuu awoodo ayuu tukanayaa. marka waa salaatuleylkii, maxaa yeelay salaatuleylku waxay ka bilaabataa cishaha ka bacdi ilaa salaad subax la gaarayna salaatuleylka halkaasi ku jirtaa. inta aad doonaysa ragcadood iyo inta aad awoodid ayaa tukanaysaa. salaatuleylkan waxaa ka mid ah salaatu taraawiix. haddaad doonaysa inaad soo gaabisid 11 waad tukan kartaa oo dadka aad tujinaysa ay dhibsanayaan intaa wax ka badan. haddii aad doonaysa inaad dheeraysidna 20 baad ka dhigi kartaa iyo inta hadba aad awoodid, dadkaasna ay u dulqaadan karaan aad tujinaysid. marka waa khushuuc iyo wanaag iyo ikhlaas iyo muwaafaqo in lagu tukado ayaa markaasi habboon oo qofka u fiicani. qofka salaada cishaha jamaacanta ku tukada iska seexdaaba la yidhi habeenkii niskiisa ayuu istaagay. salaada subax hadduu jamaaca ku tukada habeenkii dhan waa istaagay. yacni salaada subax iyo salaada cishaha haddaad jamaaca ku tukatid waxaad la mid tahay qof xalay oo dhan ama habeenkaasoo dhan salaad u taagnaa ayaa la ajartaa. sidaasoo kale waxaa la mid ah cishaha markaad tukatid taraawiixna aad la tukatid imaamkaadii ilaa laga baxayo salaadda, qofkaasna ajarka wuxuu yeelanayaa qof habeenkii dhammaan wada taagnaa. marka qofku hadba intuu awoodo oo ragcadood iyo inta akhrinta qiraa'ada uu awoodo ayuu akhrinaya oo la imaanaya. qofka qur-aanka yaqaana oo xifdisan asaga waxaa u fiican keligii inuu gurigiisa ku tukado oo markaas isagu qur-aanka la faqo oo la hadlo oo markaasi la sheekaysto qur-aankii oo halkaasi qur-aankii macaanidiisii iyo maaragtay qiraa'adiisii halkaa uu la galo sida uu sheegay imaamu shaafici caleyh raxmatullah. marka salaatu taraawiix waa salaad fadli badan oo salaatuleylka ka mid ah. ilaahayna rasuulkiisu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: wa min alleyli fatahajid bihi naafilatan lak casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda. naafilatan laka waa ziyaaday kuu tahay baa lagu yidhi nebi maxamedow salaatuleylka aad tukanaysid, laakiin ama annaga ziyaado nooma ahan, waajibkeena nusqaantu naga soo gashay ayaanu lakuu kabayaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam salaaddiisii waajibkaa iyo cibaadadiisii waajibkaa uu tukanayey waa mid dhammaystiran bay ahayd. sunankuu raacinayey oo salaatuleyl ka mid tahayna ziyaada iyo dheeraad bay u ahayd. amaa naxnu salaaddii iyo cibaadada waajibka aynu tukanayno khalal baa naga soo geli kara. idan sunnada aan raacinayno wax siyaadaa nooma ahee waajibkay noo kabaysaa, sida laga wariyey abuu umaamata oo saxaabadii nebi maxamed ka mid ah calayhi salaatu wasalaam radia allahu canhum. caaisha ninbaa waxay ku tiri ha ka tegin salaatuleylka, ha ka tegin. rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid aan ka tegine. hase ahaatee markuu xanuunsado ama markuu caajiso rasuulka ilaahay fadhi ayuu salaatuleylka ku tukanayey. marka marnamo kama tegi jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. abuu hurayrana wuxuu ka wariyey rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa nebi maxamed mid dadka jeclaysiiya ramadaanka in salaad la tukado, salaadda waajibka ka baxsan. hase ahaatee kumuusa waajib yeelin buu yidhi. markaasuu nebigu wuxuu odhan jiray: man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih. rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam hadalkiisaas sidaasuu ahaa oo salaaddaasi waa la tukan jiray, salaatu taraawiix iyo maaragtay salaatuleylka. ka bacdi nebi maxamed dhimashadiisiina waa la tukan jiray salaatu taraawiix. arrinkuna sidaasuu ahaa. laakiin jamaacada hadda aan naqaano ee la iskugu imaado cumar ayaa sidaa iskugu keenay, le'anna asal bay salaaddu leedahay, nebi maxamed baa tukaday. laakiin jamaaco nebi maxamed joogta ah kuma tukan sida hadda aynu naqaano salaatu taraawiix. taana waxaa keenay wuxuu ka cabsanayey in lagu waajib yeelo. idan nebi maxamed waa dhintay, wabitaali waxaa go'ay waxyigii. hadda marka in laku waajib yeela ka cabsan mayno. marka cumar sidaasuu iskugu keenay. wuxuu yidhi dadkii oo kala tafarruqsan markuu arkay aan isu keeno tafarruqaan ma fiicne. wuxuu yidhi cabdiraxmaan bni cabdilqaari: waxaan soo raacay cumar ibni khadaab habeennada ka mid oo weliba habeen ramadaana. masaajidkaana u soo raacay cumar ibni khadaab oo amiirulmu'miniin ah radia allahu canh. markaasuu wuxuu arkay dadkii oo kala tagtagsan oo qofba meel ku tukanayo, nin walba naftiisa u tukanayo. markaasuu cumar wuxuu yidhi anigu waxaan arkaa dadkaa inaan isu keeno, hal imaamna aan u sameeyo, saasaana fiicnaan lahayd buu yidhi. sidii buuna ku dhaqaaqay cumar ibni khadaab. ubay ibni kacab ayuuna imaam oga dhigay. wuxuu yidhi habeenkii dambe misana soo raacay dadkiioo hal imaam uu tujinayo, hal jamaaca oo ah sida hadda aan naqaano salaatu taraawiix. cumar marka waa ku farxo. wuxuu yidhi alla sidaana wanaagsanayd. marka salaatu taraawiix waa sunno xoog badan. ramadaanka dhexdiisa nebi maxamed baana jideeyey. wax cusub oo cumar uu la yimidna ma ahayn, bal iska daa nebi maxamed baa tujiyey asxaabtiisa
markii dambena wuu iska daayay isagoo ka cabsanaya in lagu waajib yeelo salaatu taraawiixna waxay ka mid tahay calaamaadka muuqda ee diinta islaamku ay leedahay ragcadaheennana waa annagii soo marnay inaysa xadidnayn oo tiro go'an aysa lahayn laakiin sida fiican qowlka culummada ay u badan yihiinna uu yahay waxaa weeye 20 ragcadood in laga dhigo waa sida fiican laakiin qofku intuu rabo tukan karaa sida aynu soo sheegnay jamaaca in lagu tukaana fiican cumar markuu dadka isku keenay oo salaadaasi iskugu keenay wuxuu imaam uga dhigay raggii Ubay ibn Kacab radiyallahu ta'ala anhu haweenkiina nin kale ayuu imaam uga dhigay waqtiga salaatu taraawiix waxa weeye cishaha ka bacdi sida aynu naqaano habeenka ugu horeysa ramadaan bayna bilaamaysa salaatu taraawiix laakiin culimadu waxay kale ka hadlaan haddii maqribkii iyo cishii la jamciyo waqti ramadaana goorma la tukanaya taraawiixdii ma waqtigaas maqribka cishaha lala jimciyey mase waqtigii cishaha ayaa lala sugayaa haddii la yidhaahdo salaada taraawiixda cishahay ku xihan tahay ee waqtiga cishaha kuma xirna waqtigii cishaha maqribka lala jimciyey ayaa la tukanayaa haddii la yidhaahdo waqtigay ku xihan tahayna waqtigii cishaha lala sugayaa marka labada qowl ay culimmadu leeyihiin baa sidaas aduu si kastay noqotaba salaada taraawiixna la timaado way fiican tahay waana shay habboon oo qiimo badan qofkana habeenkasta wuxuu akhrinayaa wax kasta uu awoodo quraanka ka mid ah yaani inta uu awoodo ilaa uu quraanka dhamaynayo waliba habeenidii la rajeynayay laylatul qadri oo u dhameeyo quraanka si ilaahay uga aqbalo oo u ducaysto sidaasna caadadii iyo dhaqankii dadkii hore wanaagsan ee salafu saalix ayaa ahayd marka qofka jecel inuu ku daydo kuwaasi dharka kor ha u xayto maxaa yeelay khayrku waa qaniimo ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaala wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah khayr wuxuu doonaba ha noqdo ha yaraado ha badnaado aad samaysid wuu kaa horreeya marka qofka imaamka ee tujinaya salaadaasi waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo salaadaas fududays xadgudbana waa inuusan la imaan dadkana waa inuusan ku dheeran oo ku daahin qaarkood waxaa laga yaabaa dadkaasi tujinaya dadka imaamyada ah salaatu taraawiix inaysan ku xasilinba rukuucdii iyo sujuuddii iyo maaragtay wixii la midkaha faatixadana ay degdeg ku akhriyaan marka qofka hadduu salaadiisu degdeg ku jiro uusan ku xasilayn sujuuddii iyo rukuucdii iyo qiraa'adii uusan wanaajinayn arkaanteedii uusan toosinayn qofkaasba intuu toona ha tukadee qof ilaahay agtiisa salaad tukaday ma ahan kaasoo liibaanay oo thawaab iyo ajir ku guulaystay ma ahan mid salaadda intay iska daaya salaaddaa weliba liidata gartay gaabiskiisana ma ahanin oo markaasi iscajibin ka badbaaday marka salaatu taraawiix iyo salaadaha kale haddaannu tukanayno waxaa waajib nagu ah salaaddaa istaaggeeda iyo qiraa'adeeda iyo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyo arkaanteeda in aannu u dhammaystirno laasimno oo aan joogtayno khushuuc iyo xuduur iyo aadaab shayddaanna uusan meelna laga soo gelin uusan shayddaan awood nagu yeelan maxaa yeele qofka salaaddiisa fududaynaya shayddaan baa meel ka soo galay oo shayddaan baa awood ku yeeshay oo waxaan dhahaya samee oo shayddaankaasaa dhahaya salaadda soo gaabi dan badan iyo howlo badan baa ku yaalle marka shayddaanka aynu iska difaacno oo aynu iska celinno marka salaadda taraawiixda imaamka inaad la dhammaysid iyo jamaacada ayaa fiican oo fadli badan maxaa yeelay nebigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla waana xadiis saxiixa xataa yansarif waxaa loo jeedaa ilaa salaadda la dhammaynaya imaamkuna uu salaadda ka baxayo o dhammaynayo maxaa yeelay sida sunnada waxa weeye qofka imaamka ee salaad tujiya dad markuu salaadda ka baxo inuu soo qaabilo oo wejigiisa ku soo jeediyo dadka uu tujiyey ayaa asalka sunnada ahaa xataa yansarif marka waxaa loo jeeda ilaa uu imaamku salaadda ka baxayo qofkaas waxaa loo qorayaa inuu xaloo dhan iyo caawo dhan salaatuleyl u tagnaa ajirkeedii ayuu ka helayaa marka xadiiskaa wuxuu ishaaraya oo tilmaamayaa fadliga salaatu ataraawiix iyo imaamka in lala dhammeeyo fadliga ay leedahay ayuu tilmaamayaa qofkana imaamkiisaa uu raacsan yahay khushuuc iyo isdullayn oo ilaahay isku dullaynaya inuu ku tukadaana muhiim ah oo xadiiskaasna ishaaraya marka haddaad taraawiixdaada dhammaystiratid oo aad ducaysatid salaatuleyl waa tukatay habeenka aakhirkiisina soo kacdo salaatuleyl kala tukatidna way kuu bannaantay laakiin waad qabtaa salaatuleyl culummada qaarna waxay dhaheen xadiiskan waxaa loo jeedaa salaadda cishaha ee ramadaanka bishaan iyo habeennada aynu ku jirno sidii salafku ay cibaadaysan jireen qiyaamuleyl oo la imaan jireen haddaynu fiirinno oo aannu galno waxaa arkaysaa ama arkaynaa cajab iyo waxaad aad la yaabtid sida ilaahay u caabudi jireen iyo sida ay cibaadada ay ugu macaanayd oo ay ugu jeesadeen ayagoon istustus iyo ha lagaa sheegayo hal lagu maqlaan u samaynay marka kuwaas aynu ku dayanno salaatu taraawiix iyo salaatuleyl dhammaanteed iyo salaadihii waajibka ahaa iyo kuwii kale sunankaha cibaado dhammaanteed sidii ilaahay uu noogu talagalay oo uu noogu jireeyey
nebi maxamedna uu noo soo gaarsiiyey dadkii wanaagsanaana aan oga dhaxalnay aynu oola imaanno annagoon waxba ku siyaadin waxaana ka dhimin dad badan waxaa arkaysa salaadday tukanayeen mid waajib iyo mid kaleba inaysan u dhammaystirayn oo aysan u fiicnaynayn ama aysan ku xasilayn salaadda rukuucdeedii sujuuddeedii iyo wixii la midkaha marka qofkaa inuu iska fadhiistaaba loo qaato markaa ictiraafo gaabiska uu ku dhex jiro markaa isa saxo asagoo sidaa u tukanaya haddana wuxuu soo haystaa inuu salaad tukaday iyo cibaado uu la yimid laakiin middaasi waa haba'an mahuuran waxba kama jiraan marka salaaddu waa inay arkaanteedii khushuucdeedii iyo xasilloonnidii ay wadataa markaasaa salaad sax ah oo nebi maxamed looga daya ay noqonaysaa